bodgareeyaan ayagoo kor ugu qaadaya qofka maadaama uu yahay alumni-ga ka baxay programka marka faa'iidooyinka uu leeyahay alumni-ga chapterka programkan halkan kuma soo koobi karno presentationka waan iska soo dhamaada ku dhow yahay sawirkan halkan ka arkaysaan waxaa uga jeedaan qowmiyado kala duwan aad ka arkaysaan Soomaaliya eligible ka tahay programka oo qayb ay ka tahay centerka lagu qaato tababarkan waxaa loo yaqaanaa Genderia Business Innovation Center oo ku yaala jaamacadda Kenyatta dhexdeeda dadkan waa dadkii ka qalin jabiyay programka especially cohort 47 halkan ba ku egyahay presentationkeygii waxay su'aalaad qabtaan gadaal baa idinka siinaa before that waxaan jeclaan lahaa inaan video yar idin tuso sida u aragtaan adinka laftirkiina muuqaal ahaan faahiya ma sheergarayn karaa ma sheergarayn kartaa sax ma yeelan karaa waa la maqli karaa sama ligeera recording ma samayn karaa maadaama xagga dambe kaga soo biiray ma la maqli karaa si fiican ma ku maqlina walaale recording ma samayn karaa walaal please ma ku ogolaanayo recording so please aan isdhegeysano videoga ma la maqli karaa wada aamusna waan maqlaynaa haddii wada aamusna waa la maqli okay so video ma la arko The Yali Regional Leadership Center East Africa was set up in 2015 as part video ma arki kartaan of the larger young The Yali Regional Leadership Center East Africa was set up in 2015 as part of the larger Young African Leaders Initiative. That is the Mandela Washington Fellowship, the Yali Network online platform, and the 4 Yali Regional Leadership Centers in Africa. The center serves as a regional hub to encourage transformative learning and enhanced leadership skills. Participants between the ages of 18 to 35 years are drawn from 14 different countries in East and Central Africa. They take part in 3 different tracks of learning: civic leadership, public management, business and entrepreneurship. When we innovate in networks. We innovate through intense collaboration. We don't innovate in isolation. We don't transform anything in isolation. It takes all of you together to do something great. The center is a public-private partnership supported by USAID, the MasterCard Foundation, Deloitte, Kenyatta University, and a host of other private sector partners. This is an extraordinary moment for Africa. Africa really is rising. There is the potential for greatly increased economic growth, for new prosperity, for a larger middle class. The Yali initiative was launched as a signature effort to invest in the next generation of African leaders. The responsibility to transform Africa really lies in the hands of the Africans. And it's very gratifying for us who work here at the center to just see the commitment and the dedication in the faces and reflected in the lives of the young people who come through here. Our focus is very unique in that, like I mentioned, it's highly experiential, and our philosophy from the beginning has been providing avenues for participants to engage with content and with experiences that transforms them, but where they pick up skills that they can implement immediately. So it's not heavy on theory, but it's heavy on practice. So the question we constantly ask is, what are the tools or the skills or the tips that we can pass on to these young leaders that they can apply immediately that will bring about transformation in their communities? They took us through some very important things on design thinking, on the 7 habits of highly effective people. I've learned how to design programs for my organizations. 3, I have leadership skills, which I wanted. And then networking.
Over the past 3 years, the center has built a reputation as a thought leader in creating transformative leadership experience for young leaders in Africa. When you put a group of extremely intelligent people that are passionate about their continent and their country together in one place to just think and to work on themselves, it's really an incredible project. Like every night there are ideas, there are conversations, and there are incredible conversations about their nation and what they could do and what we could do. I look at myself before I came here and where I am right now. There's been a huge amount of growth in the way I think, the way I look at things, and the way I'm going to handle issues when I get back. Alumni of the Yali Regional Leadership Centers become ambassadors of change and transformation in their communities and countries through their country chapters. They share and apply the experience gained to help others, creating a ripple effect of change and empowerment. Yali is a yes. A yes to growth, a yes to opportunity, and of course, a yes to stepping into the next version of yourself. It's a transformative life experience. It's a great networking opportunity. A life experience of a paradigm shift. Yali creates leaders to think outside. Invite you to share this dream of empowering young African leaders either by being a participant, supporter, or partner. waxa faahiyadan kugu soo dhaweynaya intaas buu ka egya videoga. Hello Fahia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمهان waxaan u sheegayaa dhalinyarada oo muudka iska qaadayo soo dhalinyaro waxa jirta shaqeynayso oo qofkii muudka iska qaado laga tuuraayo dib uguma soo laaban kartid soo marka waxa waaye inaad marwalba aad jeekarayso inaad muud ku jido hadaa muud iska qaado adigoo lagu amrin ama gacanta taagan oo lagu yeerin soo laga tuuri doonaa dan kuma soo laaban kartid mar labaad عدكم ما يوصل للاوانة بسنة مليئة وانكم مقلنا الله والله للاوانة good and I hope in وحوي برستيشن كوحبضا عاد ككورستين so وحي سؤالا قفتان قيبتا هوسة مسيدك عياد كوري بكرتان si hadhowdii marka la gaaro su'aalaha aan u akhrino عدي إن شاء الله مركز وحويان soo qorto عدي waxaan la soo qorin haysan insha Allah hor soo dhaweyn doona waxaan insha Allah gali doona qaybta dhalinyarada insha Allah hore ugu guuleysatay barnaamijka Yali oo memberska ka Yali in ay nooga sheekeeyaan insha Allah khibradooda iyo waxayba la soo kulmeen soo waxaan u baahnaa insha Allah inaan dhageysano haddii aad muudka iska qaadana waa laga tuurayaa soo barbareek waxa waaye kuma soo laaban kartid soo please si aad barnaamijka uga faa'iidaysto inaan insha Allah waxa weeyaan muudka aad gasho waxaan insha Allah soo dhaweyn doonaa insha Allah haddana ismahan thank you waa ku soo laaban doonaa insha Allah waan noo joogi doontaa insha Allah haddana waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay محمد حسن جعسين محمد سودو adigoo nagu bilaabaya insha Allah magacaaga iyo processkii aad usoo martay Yali sidaad ku guuleysatay markaad tababar qaatay xaaladda la kulantay waxyaabaha ka faa'iiday insha Allah adigoo soo koobaya insha Allah soo dhaw malay maqlaya good هي مال واي وما تسنتين وقتيga oo kooban awgeed waxaan doonayaa inaan hore ka galo magacayga sida walaalkeen idin sheegay waa maxamed xasan jacsin waxaan kamid ahay ka qaybgalayaasha barnaamijkan Yali sanadii bartamii 2022 ayaan kamid ahaa dad iyagu xareeyay programkan gaar ahaan waxaan xareeyay koorka public managementka maadaama isu arkayay inaan ahaa qof in muddo ku soo jiray hanaanka dawladnimo maaragtay dawliga
saas awgeed waxaan xareeyay programka anigoo buuxiyey applicationka iyo ma garanaysaay isla markaana xusay inaan muddo aan ka soo shaqeeyay projectyo kala duwan hadday yihiin non governmental sectorka ama hanaankan dawliga ahayn iyo midka dawliga labadaba run ahaantii wuxuu ahaa program aad u qiimo badan waxaan ka sheekeeyey sheekadayda anigoon buunbuunin baan si caadiya u qoray marka waxaan nasiib u yeeshay inaan fursad u helo inaan ka qayb galo programkaasi oo soconayay muddo 4 wiiga oo ka socday magaalada Nairobi runtii wuxuu ahaa barnaamij dhisaya leadershipka qofka ama hogaaminta qofka haddaynu afkeena hooyo ku nidhaano wuxuu ahaa barnaamij aad ka kororsanayso waxyaabo badan sida maaragtay fikirka qofeed iyo arrimaha kale la tacalluqa iyo maaragtay rogroga arrimo badan waxyaabo afka qalaad lagu dhaado design thinkingka inaad problem xalliso maadaama adduunyadan gebigeeduba ay tahay problem iyo dhibaato la xalinayo kuwa bulsheed kuwa family kuwa qofeed iyo kuwa kale la halmaala marka si guud barnaamijku inahaasi ayuu taabanayay public management sectorka marka la eego dabcan waxaan waxyaabo badan ka faa'iidnay sida loo kobcin karo ama horumar looga samayn karo hanaanka dawliga iyadoo ay goobta joogeen ama ay programka ka qayb galayeen dadyow aqoon fiican u leh hanaanka dawliga oo dhibaatooyin hore soo xalliyay research sameeyay analyze gareeyay rogrogay marka waxa kaloo barnaamijku aad u dhiirigelinayay iskarabsiga in dadku ay magaranaysaayay qof aan guul loo gaari karin laakiin wada jir iyo in si wada jira loo hawlgalo wax lagu qaban karo inahaasi ayuu taabanayay faahiyo barnaamijku واي محمد waxaad nooga warantaa insha Allah bal khibradaadii aad u leedahay safarkii aad u soo martay yaali dabcan in badan baan arkay iyadoo dhalinyar ila mid yahay abalay gareynayaan programka marka intaanan programka bilaabin waxaan sameeyay daraasad naftayda iyo ma garanaysaa applicationka iyo sidaan ugu ahay macquulka markii aan rogrogay kadib waxaan la tashaday dadyoga khibradda u leh oo ma garanaysaayay iyaguna wax igu biiriyay waxaygii aan soo saaray iyo ma garanaysaayay wixii ay igu biiriyeen inaan daraasad sameeyaa waxay iga caawisay inaan marxaladii interviewgana aan si fudud uga jawaabo weydiimihii la weydiiyey maadaama aan waxa marka hore baadhay marka dhalinyarta halkan igula sugan dhowr qodob oo ilaa 8 baan doonayaa waqtigoo igu yar awgeed inaan ma garanaysaayay aan bal ilaa 8 qodob ku soo koobo waayo aragnimadayda marka koowaad waxaan dhalinyarta kula talinayaa inay sameeyaan daraasad research more about the program waxaan uu ku saabsan yahay programka yeli ku samee daraasado marka hore ma garanaysaayay research garee adigoo ka duulaya xogta ay walaasheen inoo jeedisay arrinta researchku waxay ka caawinaysaa laba arrimood kow marxaladda xaraynta barnaamijka iyadoo ka dhigaysa qof si toos ah xiriir u leh barnaamijka waxay maaragtay sidoo kale ka caawinaysaa marxaladda interviewga iyadoo weydiima laga weydiin karo waxa uu yahay programku iyo sababta aad u dalbatay qodobka labaad ee dhalinyarta ma garanaysaayay u soo jeedinaya waxa weeyaan inay si taxadir leh bal horta u fiiriyaan shuruudaha looga baahan yahay ee maaragtay ama requirementska uu programku u baahan yahay waxaan aad u soo jeedinayaa inay dhalinyaradu ka jawaabaan dhammaan weydiimaha la xidhiidha programka ee maaragtay mandatory ee lagama maarmaanka ay tahay in laga jawaabo saddex waxaan dhalinyarta u soo jeedinayaa inay daacad ahaadaan be honest mar wal oo aad programka xareynayso noqo ma garanaysaayay mid daacada tusaale ahaan dad ka shaqaysay amaba aad qabatay projectyo ama mashaariic saameyn togan ku yeeshay 5 qof kaliya sheeg oo ku koobnow in programkaagu uu impact ku sameeyay 5 qof hana isku dayin inaad ka been sheegto adigoo 5,000 buu ku sameeyay 50,000 buu ku sameeyay 100 numberku muhiim maaha kaliya inaad wax la taaban karo aad ma garanaysaayay samaysay oo bulshadaada aad u samaysay baa muhiima qodobka afraad ee dhalinyarta u soo jeedinaya waxa weeyaan ha isku dayin inaad qaadato qof kale ama ma garanaysaayay application uu lahaa inta badan dhalinyaradu markay programkan xareynayaan waxay soo weydiiyaan applicationkayga waxaan soo jeedinayaa in dhalinyaradu qof kasta applicationkiisa ay helaan ay u qaataan kaliya guideline balse aanay u qaadan ma garanaysaayay inay iyagu iska dhigayaan inay hawshaasi iyagu ay soo diyaarsadeen adduunyadu way horumartay hadda waxaa la joogaa tusaalahaan jaamacaduhu in daraasad markaad samaynayso ay geliyaan programo plagiarism checker
document uu qof hore lahaa ama application qof hore lahaa dad sidiisa damacday inaad ku gudbiso si yaro fudud ba ma garanaysaa loo soo qabanayo adduunyada hadda way horumartay qodobka shanaad ee dhalinyarada ma garanaysaa u soo jeedinaya waxa weeyaan markaad xaraynayso ka dhig ujeedkaaga mid cad oo ma garanaysaa meel cad istaag make your motivation clear and ujeedkaad adigu ka leedahay visionkaagana ku xidh ma garanaysaa isku xidhka labadaasi arrimood waxay muujinaysaa ahmiyadda uu barnaamijku u leeyahay naftaada iyo xaqiijinta ahdaaftaada haddaad labadaasi isku xidho marka inay motivationka dhalinyarada iyo visionkooga inay isku xidhaan oo uu kaleer noqdana waan soo jeedinayaa qodobka lixaad ee dhalinyarada u soo jeedinaya waxa weeyaan applicationkaaga markaad diyaarinayso ku qor simple English language fudud oo la fahmi karo ha isku dayin inaad English adag oo grammar u badan oo ma garanaysaa complicated oo la fahmi karayn inaad ma garanaysaa aad tiraado ku qor si yar oo fudud iskaga qor simple English aniguba ismaan dhibina in yar baan ma garanaysaa isu geegeeyay marka language-ka caqabad maaha kaliya waxaad sheegaysaa in la fahmi karo ma garanaysaa ayaa muhiima qodobka toddobaad ee dhalinyarada u soo jeedinaya waxa weeyaan markaad application-ka aad qoraysid inta badan samee maxsuul maxaad maxsuul hadhow toole ma garanaysaa haddii ay ku siiyaan maxaad samayn kartaa maxaad impact bulshadaadii ku samayn kartaa marka showda impact baan leeyahay dhalinyarada saameyn nool oo ma garanaysaa dadka uga sheekee tusaaleaan mashaariicdaad qabatay fiiri 5 qof hadday impact ku sameeyeen 5 qof inay 500 qof oo kale xidhiidh la leeyihiin baa suuragala marka sida uu projectgaagu ama hadhow ma garanaysaa waxaan marka lagu siiyo kadib impact aad bulshada u yeelan kartay isagana taabo si maaragtay daad u noqoto qof ahmiyad u leh programka waxaan ku soo gabagabeynayaa ayoon kaga baxayaa isku day inaad dhowr jeer akhrido ma garanaysaa application-kaaga asxaabtana aad weydiisato taageero maaragtay inta badan muhiimad gaar ah haddaan adigu application-kaaga siinin waxba ma helaysid haddaad hal mar intaad isku dayda habeen keliya inaad yaali barnaamijka gebigiisaba ku xarayso maxsuulka ku soo baxaya ma noqon doono mid weyn laakiin mar kasta oo application-kaaga muhiimad gaar ah siiso rogrogto 6 jeer ama 7 jeer aad mar walba akhrido dadkana aad weydiisato caawimaad inay ku siiyaan oo dadkii kaaga horeeyay aniga ismahaan walaalaha kale halkan jooga haddii aad u soo dirto application-kaaga ii review garee haddana aad aniga iga tagto mid kale ula tagto waxa uu noqonayaa waxaagii wax weyn oo ma garanaysaa aad gaadho inahaasaan kaga baxayaa 8 talan kusoo gabagabeynayaa dhammaantii waad mahadsantihiin fiid wanaagsan guul baan idin rajeynayaa insha allah aad mahadsantahay maxamedow intaadan ka bixin waxyaabo ma jiraan si khaas ku taabtay oo barnaamijkan aad ka faa'iiday iyo sidoo kale haddaad wax tala u hayso dhalinyarta aad u soo jeedinahay soo dhawo waad mahadsan tahay kolley walaalaha iga dambeeyaan isla waqtiga u marxi programkani wuxuu ii ahaa program ii furay jihooyin badan tusaale ahaan sanadkan iyo sanadkii hore waxaan ka qayb qaatay program iyo uu ka mid yahay barnaamijka yaali Future Africa Fellowship oo aan sanadkan ka ahay qofka ku mataliya bulshooyinka Soomaalida waxa kaloo isaga laftiisa ka qayb qaatay African Civic Engagement Academy oo jaamacadda Georgia University iyo waaxda Afrika u qaabilsan arrimaha Mareykanka ay maaragtay wadajir u bixiyaan yali waxaan oran karaa waxa kaloo uu furay barnaamijyo badan oo hadda qaarkood aan abalay gareeyay oo ay recommendation letter iyo waraaqo lamid ay siiyeen waxaan hadda iminka iyada laftigeeda aan isku dayay inaan dhalinyar badan ka caawiyo how to sida ay u heli lahaayeen waxaan la yiraahdo transformation funka oo ma garanaysaa aan mashaariicda qaarkood doonayo inaan aniga laftayda aan qayb kala noqdo maadaama aan kamid ahay memberska Yali alumni-ga oo aan xaq u leeyahay inaan helo oo dadyoga kale aan hayn alumni-ga aan de xaq ugu leeyahay marka arrimahaas oo dhani waa arrimo kamid ah ma garanaysaa albaabada badan ee barnaamijkani uu inoo furayo sidoo kale sanadka waxaan ku rajaynahay inaan xareeyay isaga laftigiisa Mandela Washington Fellowship oo ah salaan qofka programka hore ka soo qayb galay u sahlaya inuu ma garanaysaa kan kalena ka qayb galo sida ay walaasheen prestige-keeda ku sheegtay inahaasi ayaan ku soo koobaya waqtiga kooban awgeed aad baad u mahadsantihiin aad baad mahadsan tahay Saaxiib Maxamed taladaada qurux badan noo soo jeedisay insha Allah dhalinyarta kale waxaan ka codsanayaa wixii su'aalo ay qabaan in qaybta comments insha Allah nagu reebaan oo maasiyadka عندي جماعة تاعتنا هذا فيديو إن شاء الله سلوك الله رأي لسوسين دون إن شاء الله thank you وحنكون حجين دونا أي محمد إن شاء الله ونوصل الله عندنا إن شاء الله وحين سؤال
waxaan insha Allah hadda ku xajin doonaa walaashay Fatima Cabdirasaaq Fatima soo dhow insha Allah hadda ay maqlayso waa members ka tirsan Yaali waxay inala wadaagi doontaa insha Allah khibradeeda ay u leedahay insha Allah iyo safarkii ay soo martay Fatima soo dhow السلام عليكم ما لي مقلعونات عادي هذا سوى نكسن اوكي مقعي هو فاطمة عبد الرزاق هذا هو فرسنا برنامج كان انا كسو قيب كلو باك جراوند كيغا وحير هدان كور مرو انيغا waxaan sameeyay hadda waxaan sameeynayaa Master of International Health Management aan ka wado jaamacadda Arizona State University waxaan sameeyay oo kale Master of Public Health bachelor's degree gaygana waxaan ku sameeyay Medical Laboratory Science barnaamijkan waxa laga yaabaa inaad dadka speakers ka xooga aan ka Johnny dawanahay oo Johnny-gaygu uu ka duwan yahay barnaamijka markii ugu horeysa waxaan apply gareeyay oo la soo aqbalay as a finalist 5 October 2018 waxaan ahaa cohort 29 way ii suurtageli weysay inaan waqtigaas tago personal issues inaan tago barnaamijka 2019 dabayaaqadeedii baan haddana apply gareeyay mar labaad waxa la soo aqbalay 24 January 2020 waa ogeydeen waqtigii 2020 waxa la galay COVID-19 kadibna waxa dhacday restrictions imaaday 7 May 7 May 2020 baan waxaan ahayn cohort 37 ahaani markii dambe waxaan ku qaatay online waxaan ahayn cohortkii ugu horeeyay oo online ku qaata due to COVID-19 disease waxyaabaha marka Johnny-gaygaas aan ka laga qaadan karo waxa kamid perseverance يعني إنه قفكو ما تقانا وحن مدام وها برنامج عاد ودوني أو يديله إيو وحواي commitment بدن عموجي وحن كده ذالي إنا وحواي أن برنامج كان أبلاي قريه أو كعلي مر لبعض حتى مركي ورا دقيس ورتقلي ويسي هدان أقلو وحيابها أن دليرتا كلها تلين دونو حتى أبلاي قريني سام حيسيني سيني برنامج كان أبلاي قريان وحن ديه لها مالين والبرود وحواي application كو deadline بولي هاي maalin walba waxaad samaysaa si aanan uga caajisin barnaamijkan subtask samayso maalin walba wax yar qabo oo kamid ah barnaamijkan si ay kuugu fududaato inaadan waxa weeye aadan hal maalin haddaad dhahdid hal maalin baa wixii ku xareynaya waad ka caajisi doontaa marka waxaan dhahayaa si uu waxan waxa waaye uu noqdo wax oo maaragtay barnaamij oo adigana aan waqti badan ka qaadanin waqtigii loogu talagalay aad ku dhamayso sida samee waxaan dhihi lahaa essays oo kale markaad qoraysid waxa waaye hal team qaado wax aad ku fiican tahay barnaamij aad ku fiican tahay oo voluntary work aad ka soo qabatay shaqooyin badan aad ka qabatay experience fiican aad u leedahay hal sheeko oo qurux badan baa kugu filan oo aad dhamaan waxa waaye su'aalaha dhan aad ku salayn karto aad u qurux badan tahay waxaan kaloo dhihi lahaa waxaan kaloo ku dari lahaa barnaamijka haddii aad awoodid oo kale essays-ka waxaad u kala qaybisaa introduction background iyo conclusion si mataqaana wixii ay u noqdaan wax oo maaragtay sheeko isla socota aysan noqonin wax aad u kala duwan waxaan kaloo dhihi lahaa waxaad xoojisaa qof walba voluntary work because waxa laga yaabaa shaqada aad soo qabatay oo kale in lacag lagugu siinayo laakiin voluntary work haddii aad waxay doontaba ha noqoto haddaa sports aad dhalinyarada ku waxa waaye aad tahay dhalinyarada sportska haddaad macallin tahay wax ka baxsan waxa aad yani waxa waaye waxaad ka shaqaynaysay oo kale oo voluntary ah haddii jirto aad u qurux badan tahay inaad waxa waaye soo bandhigto waxaan kaloo ku dari lahaa markaad xareyso kadib emailkaaga jeegaree because aniga oo kale barnaamijka ay qabsaday oo kale waqtigaas aan xareeyay inkastoo aan meel baadiya joogay laakiin way ii suurtageli weysay inaan waqtigii loogu talagalay aan ku diro time baa laysa siinaya oo la rabaa inaa documentska kusoo buuxisid kadibna kusoo celisid marka waxaan dhalinyarada ku tarin lahaa markaad xareysid kadib waxaan xagga ha ku ilaawin si waxa waaye consistent ah u jeegare emailkaada haddii lagu soo aqbali waayo applicationka waad xareysay natiijadu waxay noqotay natiijo waa lagu soo aqbali waaye waxaan dhihi lahaa dhalinyarada marnaba ha ka caajisin mar labaad xaree mar saddexaad xaree mar afraad xaree waayo barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij indho badan kuu furi doona oo wax badan aad ka faa'iidi doontid waxaan kaloo leeyahay waxa waaye waxyaabaha aan ka faa'iiday barnaamijkan haddaan soo koobo waxa waaye
network ha noqoto alumni-dii country chapter-kayga ama Soomaaliya dadkii maxaa la dhihi group baan leenahay marka groupkaas oo kale waxaad ka faa'iideysaa dhalinyaro badan inaad ku barato oo activity badan qabanaya country chapter-ka inaad wax badan kala socoto sidoo kale dhalinyarta uu isugu imaanayso 14 wadanka imaanaysa ee aad cohortkaas isla qaadateen waxaad ka faa'iidi doontaan waxyaabo badan dadka aan ka wada qayb qaadanay oo kale waxyaabo badan aan iskala faa'iidnay oo ka mid ahayd inaan businessyo xataa isla qabanay anagoo wadamo badan kala joogno online ku qaadanay waxaan kaloo dhihi lahaa waxaad ka faa'iideysaa barnaamijkan intuu lagu guda jiro mentorship inta training ku socdo iyo markuu dhamaado kadib waxa waaye barnaamijyo badan oo mentorship waxyaabo badan oo ku hooga tusaaleynaya oo waxyaabo badan ku furaya insha Allah baad ka faa'iidi doontaa fursado kale inaad sii xareyso bay kugu dhiirigelinaysaa sidoo kalena fursado badan inaad sii xareyso baad ka sii faa'iidi doontaa insha Allah ama as alumni ha noqoto ama as a participant ha noqoto waxa jira constant emails la soo diro alumni hadaad noqoto waxyaabo adduunka kale fursado ka jira oo ay mar walba waxa waaye yaali lagu soo diro oo aad ka faa'iidi karto hadii aadan xataa meelaha badan meelo kale aadan gelin oo aadan barnaamijka aadan arkin waxa waaye intaasan ku soo koobaya aad u mahadsantihiin thank you هذا ما سنتهاي فاطمة عبد الرزاق runtii sheekada quruxda badan loo wadaagtay waa aragnimadaada ku saabsan yaali insha Allah hore u soconaa oo dhalinyarada khibradda u leh hore uga qayb qaadatay barnaamijkan insha Allah ayaan soo dhaweyn doonaa dhalinyarada barnaamijka aad ku danaynaysa waxaan ka codsanayaa inay mud galaan soo hadii qofka aan mud galin waa la tuurayaa hadii kala buuqa oo furmaayo waxaan ku xijinayaa insha Allah Cabdirabbi Cabdiraxmaan Cabdirabbi insha Allah haday maqlayso insha Allah soo dhawo bismillahir rahmanir rahim mal maqlaa haadiyad waa ka cudur daaranayaa fiidiyowga oo meel munaasab ma joogo marka sana ku wadaya sawirkii loo jeedo malayn ku socod marka hore waa salaamaya dhamaan akhyaarta isugu timid xaggan dhalinyarada Soomaaliyeed gabdhaha iyo wiilashaba isugu jirta lortii halka u yimid inay wax ka ogaadaan fursadan yaali training iyadoo uga mahad celinayo isbahan oo inta badan sharaxday yaali waxay ku saabsan tahay systemkeeda inta program ay ka kooban tahay dalalka ay ka tirsan tahay iyo waxaas oo dhan marka waxaan filayaa in halkaas uga bogoteen wax walba oo yaali ku saabsan ana waxa rabaa inaan ka hadlo horta akhyaarta da isku bandhigo aniga Cabdirabbi Cabdiraxmaan aan lahaa waxa tababarka yaali qaatay 2021 daqiiqadiisa waxa ahaa code 44 gaar ahaan taraga ama qaybta ka ahaa waxay civic leadership sida la sheegay waa saddex track waa public management track civic leadership track iyo entrepreneurship track haddana applicationka hadda la xareynayo ama kooxaha hadda la xareynayo furan waa saddex kooxood oo waa 51 52 iyo 53 marka sorry daqiiqada 2022 ahayd ani markii aan qaadanayay bishii 8 2022 koodka 44 marka waa dareemi karaa ilaa August 2022 ilaa hadda oo anoo kood 44 ahaa inta kood oo iga dambeysay ama kooxood oo iga dambeysay marka taa waxay muujinaysaa in haddii saddexdan kooxood hadda furan kood 51 kood 52 kood 53 aad ku guuleysan weydid still sanadkan laftigiisa u leedahay in xareysid kooxaha kale oo la furayo ama fursadaha dambe oo imaanaya sidoo kale waxa ahay oo ka tirsanahay alumniga Yali Somali alumni oo qofka markuu koorsadan qaato uu ku biiro sidoo kale waxa si ahay communication jaarka ama shanta qof oo hogaaminaysa chapterka labadan sano 2023 gaar ahaan communication staff marka waa ku faraxsanahay anoo committee ka tirsan in dhalinyaradii kale oo Soomaaliyeed aan uga faa'iideynayo anagoo iyo qayb kamid ah alumnigaba
in ay iyaguna xareeyaan Soomaaliya hadda ilaa iyo 174 dhalinyaro ah baa ka faa'iideystay fursadan oo alaamniga ka tirsan marka loo eego dalalka kale oo East Africaanka ah 14 dal oo East Africa ah barnaamijka ka faa'iideysta dalalka kale oo East Africaanka ah waxaana dalka ugu yar ee ka faa'iideystay taa waxa keenaysa dhalinyarta xareynaysa oo yar sanad walba waxa xareysa dhalinyar aad u yar inta xareysan inta badan way heshaa mar aan fiirinay dalalka ka faa'iideystay fursadan dalalka lagu soo dhow sida Kenya iyo Uganda waxay marayaan dadka ka faa'iideystay fursadan ilaa 600 500 600 700 dalalka qaarkood waa gaarayaan marka annagana waxa marayna 174 taa waxa keenaysa sanad walba dadka ku baraarugsaneen waxa go'aansanay in dhalinyarta la wadaagno fursadan si ay u horumariyaan xirfadahooda ay ugu weyn tahay leadership skill-ka intaas waa hordhac waxa rabaa ina wax yar dhalinyarta su'aalo weydiiyo anoo aanan ayagu aan ka jawaabeen laakiin maskaxdooda ay ayagu isaga jawaabayaan ma taha qof hogaamiye ah ama wax hogaamiyey ama leadership leh ma hogaamisay ama ma ka qayb qaadatay hogaan intii aad soo nooleed ha ahaato inaad dhowr qof hogaamisay 5 qof ugu yaraato inaad galaas noqoto galaas hogaamisay inaa koox sportisa hogaamisay hadaa tahay wiil inaa wax hogaama ma ka qayb qaadatay sidoo kale ma tahay qof jecel in uu dad dhex galo sidoo kale ma tahay qof innovation leh oo wax urin kara ma jeceshahay safarada oo inaad safar gashid oo dalkaaga ka baxid oo aad meel kala booqatid ma jeceshahay ilaa inahaas haddii aad xitaa qayb ka mid ah aad jeceshahay yali waa adiga programka yali ku baahan programkan waxa ugu weyn oo muhiimadiisa tahay waa leadership qofku in uu leeyahay leadership traits ama calaamadaha kamid inuu xogaamiyey ama inuu jecel yahay inuu xogaamiyo ama inuu ka qayb qaatay hogaan muddadii xirfadiisa intaas haddii ay tahay okay programkan waa xareyn kartaa shuruud ma ku xiran tahay marka wax shuruud kuma xirna oo qof walba xareyn kara waxa ugu yar qofka xareyn kara qof secondary dhameeyay xitaa waa xareyn karaa oo kuma xirna certificate ma la isweydiinayo documents lagaga baahan yahay inaad ingiliisid ma jiro waagi hore wuxuu lahaan jiray passport qofku inuu shuruud passport ku xidhi jireen hadda shuruudda passportka ah windowada ugu dambeeyay waa laga daayay oo qofka markii uu programka ku guuleystay kadib baa waxa looga baahan doonaa passport sababta passportka looga baahan yahay muhiimka u yahayna gadaal ka sheegi doonaa inta lagu guda jiro applicationka oo aad applicationka xareynaysid marka xareyntiisa aad bilowdid waxa ugu muhiimsan in isleeyihiin waxbarashadaada waxa aad baratay iyo shaqadaada waxa khibrad u leedahay programkan waxa ugu muhiimsan waa in qofka marka la soo tababaro uu bulshadiisa ku celiyo wixii lagu soo tababaray ama leadership skills lagu soo tababaray oo basic u ahayd aqoontiisa marka anything field walba oo qofku baranayo oo uu ku dhex jiro programkan uu u furan tahay oo kuma xirnaa field gaar ah sababtoo ah qofka waxa la rabaa wax walba uu qofku bartay hadduu yahay macallin arday wax baraya hadduu yahay qof ka shaqeynaya caafimaad hadduu yahay engineer hadduu yahay economist hadduu yahay any field oo uu qofku bartay buu hogaamin karaa oo bulshada uu wax kaga celin karaa marka waxa ugu muhiimsan waa in waxa aad baratay iyo khibradaada shaqo ama waxa aad qabatay ee isyeeshaan waa qodob aad u muhiimsan sidoo kale in markii aad qoraysid khibradaada oo waxa waaye CV ma la diraayo application-ka leh meesha waxbarashadaada iyo khibradaada oga hadlaysid iyo waxa qabatay khibradaada marka aad qoraysid waa inay ka muuqataa hogaamin wax calaamado muujinaya inay hogaamisay marka taasna waa mid muhiim ah sababtoo ah programkan is all about hogaamin waxa jira programka ugu muhiimsan inta ku dhex jirtid su'aalo isaysa oo 4 question ama ilaa 5 question oo aad ka jawaabaysid midiiba laga baahan yahay inaad qortid ilaa iyo 250 eray oo English
muhiim ah in Englishkaaga uu tab yahay kaliya waxa aad markaas aad awoodid waxa weeye halkaas ku qoraysaa laakiin waxa muhiim ah in marka aad su'aalaha qoraysid ka jawaabaysid su'aalahaas ay xiriir la yeeshaan waxa aad soo qabatay iyo shaqadaadii iyo waxbarashadaadii qofka su'aalihiisa uu qortay waxbarashadiisa iyo shaqada uu qabtay ama waxa uu ka shaqeeyay intaas ay xiriir ka dhaxeeyo oo align isku noqdaan wuu kaga dhow yahay inuu ku guuleysto dadka kale that's